jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Istaagar ee wadanka Jarmalka ayaa waxa ay doorteen gudoomiye cusub. Faafahinta warkani waxa inoo haya wariyahayaga ayaan la mudakar. munaasabadan oo ahayd miseer sara loo soo agaasimay oo lagu dooranayay gudoomiyaha cusub ee yeelan doonto jaaliyada Soomaalida ee Stuttgart ee dalka Jarmalka waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin marti sharaf odayaal waxgarad dhalinyaro waxaana doorashadaasi ku tartamayay laba musharax Guuleed Daahir Cabsiye Xasan Cusmaan Carab waxaana munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeediyay gudoomiyihii hore ee jaaliyada Gurmad Somalish Union Maxamed Cabdiwaahid Owliyo oo ku dheeraaday muhiimadda ee jaaliyadani u leedahay dadka ku dhaqan magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka. sideen wada jiri karnaa sideen wax wada qabsan karnaa sideen hal hadaf u yeelan karnaa sideen oo wada tashan karnaa masiirka ilmaheena iyo mustaqbalkeena dambe inaga laftirkeena sideen isu caawin karnaa sideen mid u noqon karnaa marka su'aalahaas markaynu is weydiino oo jawaabahooda raadino oo jawaabtooda helno waxaanu helaynaa xalka iyo waxaanu doonayno waxaan kula dardaarmayaa oo ku dhiirigelinayaa walaalayaal inaad u midowdaan wax la yiraahdo Soomaalinimo wax ka hooseeya qofna inuusan ka shaqaynin qofna inuusan sumcadiisa isaga ciyaarin maanta haddii aad ku jirtay wax ka hooseeya Soomaalinimo maanta aad taagan tahay ka laabo walaal waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha doorashada ee jaaliyada Gurmad Somalish Union Maxamed Xuseen Casood waxa uu warbaahinta u sharaxay qaabkii ay u dhacday doorashada iyo cidda ku guuleysatay dhammaantii waa mahadsantihiin uga soo qayb gasheen doorashada gudoomiyaha ururka jaaliyada Somalish Gurmad Union waxaa xagan ka codeysay 41 cod ayaa codeysay waxaana khasaartay 3 cod waxaana kaalinta koowaad soo galay Xasan oo helay 22 dhibcood waxaana kaalinta labaad galay Guuleed Daahir Cabsiye oo helay 17 dhibcood ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay hadal kooban oo ku taxalluqa ka soo jeediyay halkaasi gudoomiyaha cusub ee yeelan doonto jaaliyada Gurmad Somalish Union ee magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka Xasan Cusmaan Carab ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay guddigii doorashada soo agaasimay sidoo kale waxa uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay mas'uuliyiintii ka soo qayb galay doorashadaasi dhammaantiin waan degmad celinayaa kuwa ii coday iyo kuwa ii codaynba dhammaantiin waa mahadsantihiin waxaan sidaas u mahad celinayaa musharaxii igula tartamay xalka Guuleed Daahir oo asagu lahay nin saaxiibkee laakiin xogaa lugaha igu dhegay waxaan rabaa inaan wax yar ka yidhaahdo wixii noo qabsoomay intii aan maaragtahay hawsha ku jirnay 6 bilood la soo dhaafay awalan horta meel hoosaan ka soo bilaabay haddii qofku wax bilaabo laba maado dhaxlaya inay wixii socdaan iyo inay socdaan faliilaahi alxamdu anaga hadda way socotay waxaan u malaynayaa jaaliyada Gurmad way socotay intaanu nin oo dhalinyaro oo maskaxdoodu fresh tahay jaaliyada Gurmad 3 maaday leedahay maskax odayaaleed bay leedahay firfircooni dhalinyaro ay leedahay jeeb dumarna way haysataa marka waxaan u malaynayaa wax bay istaagay isku soo wada duubo mas'uuliyiintii munaasabadaasi ka hadlay ayaa hadaladoodu u badnaa dardaaran iyo duco waa ayaan la mudakar TV-ga caalamiga Universal magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka